oo ay ku qaadeen ciidamada Israa'iil. Waxaa ka mid ah taangiyo la beegsaday, gaadiid kale oo la gubay iyo weeraro toos ah oo ka dhan ah ciidamada duulaanka ah. Israa'iil ayaa sidoo kale tan iyo saaka waxay ku dishay marinka Gaza in ka badan 80 qof. waxaa soo baxaya warar dheeraad ah oo la xiriira khasaaraha ka dhashay weerarkii gantaal ee Iiraan ku qaaday saldhigga Maraykanku ku leeyahay Qatar. Madaxweyne Erdogan oo ku tilmaamay tilaabada ay hubka ku dhigeen ciidamada PKK ee Kurdiyiinta guul u soo hoyatay Turkiga. qodobadaas iyo kuwa kale iyo falanqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa. soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit, booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. ku soo dhowow shirkadda dhismaha casriga ah ee Golden Country Apartments. daaxaadda waaftoo dibadaha maraysay hadda soo deg meeshii dalxiis ku ahaan lay qalbiguna ku degila daartaas ifayso dadku wada jeclaadeen mardocdaada ka carbuuno. shirkadda dhismaha guryaha ee Golden Country Apartments waxa ay Nairobi kugu diyaarisay dhismo casri ah oo hadda shaqada lagu wado, kaasoo ka kooban dhammaan adeegyada xaafad casri ah looga baahnaa. lacagta 24 bilood ayaad ku bixin kartaa haddii aad doonto. waa 2 qol, 3 qol iyo 4 qol iyo qolka shaqaalaha, waxaana uu ku yaalaa xaafadda South Sea, wadada Mohoho Avenue. kala xiriir ciwaanada iyo adreeska kale ee shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal. Maxamed Maxamuud Cade oo wararkan isku soo duway ee khadka ku jira. Maxamed, inoogu bilow qodobada wararka ugu waaweyn. bog internetka Israa'iil laga leeyahay ayaa ku waramaya in tiro askarta Israa'iil ah ay ku dhaawacmeen mar uu socday dagaal dhex maray ayaga iyo Kataib al-Qassam kuna dhex maray magaalada Khan Yunis oo ku taala koonfurta marinka Gaza. sida warbixinada ay xusayaan, diyaaradaha helicopter ayaa daadgureynaya dadka dhaawaca iyo kuwa dhintay, waxaana la xaqiijiyay inay deegaanka ay gaareen ay tahay Tal Hashoma, Bresson, Sakora iyo Ijelof, xarumaha caafimaadka ee dadka bukaanka ah ee Israa'iiliyiinta la geeyey. warbaahinta ayaa sidoo kale tilmaamaysa in dagaal xoog leh oo masaafo dhow la isu jiray oo labada dhinac ku dhex maray marinka Gaza saacadihii la soo dhaafay, waxaana lagu tilmaamay dagaalka inuu ahaa mid culus welina uu socdo. bogga internetka wala la yiraahdo ayaa isna ku waramaya in askari Israa'iili lagu dilay waqooyiga marinka Gaza, 2 kalena lagu dhaawacay mar uu dagaal ka dhacay koonfurta marinka Gaza. dhanka kale, warbaahinta Falastiiniyiinta ila ku dhow ayaa sheegaya in Israa'iil diyaaradaheeda helicopterka ay ku degeen waqooyiga galbeed ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza si ay dhaawac iyo askar dhimatay u daadgureeyaan. Saraakiil Qudus ayaa ayadana dhankeeda sheegaysa inay burburiyeen mid ka mid ah gaadiidka militariga Israa'iil kadib markii ay ku qarxiyeen fuusto waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey isagoo marayay deegaanka Sheikh Nasser ee bariga Khan Yunis. saraakiil Qudus ayaa sheegaysa in ay duqeeyeen askar Israa'iiliyiin oo isku soo urursaday buurta la yiraahdo Sorani, waxayna la dhaceen gantaalada mootarka loo yaqaano bariga Tufaax ee magaalada Gaza. weerarada saraakiil Qudus ayaa la sheegay in burbur lagu geystay taangi ay leeyihiin Israa'iiliyiinta nooca markaabada loo yaqaano. sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamo lug ku soo galay oo Al-Tufaax agaarkeeda yimidna iyo inay isku dhaceen ciidamada saraakiil Qudus. sida laga soo xiganaya ilaha caafimaadka ee Gaza, 82 Falastiiniyiin ayaa lagu dilay weeraro kala duwan ay Israa'iil ku qaadeen marinka Gaza oo ay ka mid tahay 34 lagu dilay ayagoo cunno gargaar saf ugu jira. warbaahinta Maraykanka ayaa ku waramaysa in madaxii hore ee howlgallada ciidamada Israa'iil uu ku nuuxnuuxsaday istiraatiijiyada isticmaalaysa ururka Xamaas ee dagaalka hadda ay kula jirto Israa'iil, wuxuuna mas'uulkaasi sheegay lagana soo xigtay in Xamaas ay waqti ku filan haysato oo ay ku daraasayso howlgallada iyo qaabka u dagaalamaan ciidamada Israa'iil, kadibna ay qaadaan weerar celis waxtar leh ayagoo fahamsan in ay leeyihiin fursado badan oo ciidanka Israa'iil wax ku gaarsiin karaan. wuxuu sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in dagaalka ay horseed ka yihiin ururka Xamaas
uu yahay mid ay ka faa'iideysanayaan goobaha ay ka nugul yihiin ciidamada Israa'iil. taliyihii hore ee howlgallada ayaa sharaxaad ka bixiyay in Xamaas howlgalladeeda ay yihiin unugyo tiro kooban ah oo gooni gooni u socda, waxaana la sheegay in ay fudud yihiin isla markiiba ay meeshay rabaan weerarayaan, lamana qiyaasi karo sida ay u howlgalayaan. intaa waxa uu ku daray in kooxda ay isticmaalayaan waxyaabaha qarxa, gaar ahaan waxyaabihii Israa'iil ee dagaal ku isticmaashay ayay dib inta u farsameeyeen ayay Israa'iiliyiinta u adeegsanayaan. wuxuuna ku nuuxsaday sarkaalkaasi in dagaalkani lagu sheegay dagaalka qaraxyada, xirfadda gaadmada degdega ah iyo istiraatiijiyad ay Xamaas qaadanayso inay dagaalka dhulka ka socda ay ka faa'iideysato, horseedna ka tahay xakamaysana goob kastoo lagu dagaalamo, iyadoo ka faa'iideysanaysa goobaha ay ka nugul yihiin qaabka Israa'iiliyiinta ay u howlgalayaan ama u dagaalamayaan. weerarkii ay Iiraan ku qaaday saldhiggii militariga ee Maraykanku ku lahaa dalka Qatar ayaa lagu duqeeyey xarun ay yaaleen qalabka militariga ee wadanka Maraykanka oo isugu jiray isgaarsiin iyo meel lagu ururiyo sawirada satellite-ka lagu qaado. waxaana la sheegay sawirro satellite-ka oo ay qaar kamid ah ay arkeen warbaahinta reer galbeedka ayaa muujinaya in la arkay goobta la weeraray. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka, Pentagon loo yaqaano, Sean Parnell, ayaa sheegay in gantaalka Iiraan ee nooca ballistikada ah uu duqeeyey goob xasaasi ah oo Maraykanku lahaayeen. weerarka xerada militariga Al Udeyd oo ku taalla meel ka baxsan magaalada Dooxa ee caasimadda u ah wadanka Qatar bishii Juun 23 ayaa jawaabta Maraykanka duqeyn u geystay goobaha nuclear-ka ka dhalatay. Iiraanna waxa ay fursad u heshay inay argudasho degdeg ah samayso, taasoo horseeday in madaxweyne Trump uu ku dhawaaqo xabad joojin lagu soo afjarayo dagaalkii 12 maalmood socday ee Israa'iil iyo Iiraan u dhexeeyay. wararka caalamkan waxaa ka mid ah madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in uu aad u taageersan yahay inay hubka iska dhigaan maleeshiyaadka Kurdiga, kuwaasoo hawshooda bilaabay inay hubka iska soo wareejiyaan. jabhadan oo la yiraahdo PKK ama xisbiga shaqaalaha ee Kurdida ayaa tilaabadan qaaday ay dhabaha ugu furayaan bog cusub oo taariikhi ah wadanka Turkiga ku tilaabsaday. 30 kamid ah maleeshiyada PKK ayaa hubkooda god afkiisa waqooyiga Ciraaq maalintii Jimcihii dab ku suray. taasna waxay muujinaysaa tilaabo muhiim ah oo hore loo qaaday oo lagu soo afjaray dagaaladii muddada dheer dhex marayay xukuumadda Turkiga iyo jabhadaasi. arrintan ayaa dhiirigelin weyn sameynaysa ayuu yiri madaxweynaha wadanka Turkiga, waxaana muuqata in la soo afjarayo colaadii muddada dheer jirtay. maanta waa maalin cusub buu yiri, bog cusub ayaa taariikhda wadanka Turkiga u bilowday. albaabadan waxay u furaysaa mar kale Turkiga inay noqoto dawlad awood weyn, waxaana fursado weyn u furmaya wadanka Turkiga sida uu madaxweynaha Turkiga u sheegay xubno kamid ah xisbigiisa ee ku kulmayay magaalada Ankara ee caasimadda wadanka Turkiga. waxaa kaloo uu sheegay in tallaabooyinka dhowaan la qaaday ay mideynayaan qaranka Turkiga. haddana baarlamaanka ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaadan doonaa buu yiri sidii lagu abuuri lahaa qaab qaanuuni ah oo lagu dhammaystirayo nidaamka hubka looga dhigayo jabhadda. ciidamada qalabka sida ee wadanka Taiwan ayaa sameeyay dholotus xagga kombiyuutarka ay ku difaacayaan wadankooda kana difaacayaan Shiinuhu haddii ay dagaal ku soo galaan sida lagu sheegay warbaahinta. waxaa ka mid ahaa baa la yiri dholotuskaasi kombiyuutarada lagu sameeyey qaraxyo iyo qaab looga hortegayo nidaamka weerarka ee wadanka Shiinaha. sanadii ugu dambeysay webiga la yiraahdo Tasamu ayay difaac uga jireen xukuumadda Taiwan oo ciidamo fara badan oo military ayaa ku sugan halkaasi. militariga Taiwan ayaa sheegay inay ka hortegayaan inay u diidaan maraakiibta Shiinaha iyo gaadiidkooda in ay yimaadaan webiga afkiisa kuna soo degaan deegaanka la yiraahdo Hanho iyo Dachi, halkaasoo ay sahlan tahay in laga soo weeraro caasimadda Hanoi
mahadsanid maxamed daawadayaal waxaan u gudbaynaa wixii warar ah ee soo kordha iyo falanqaynta balse qadar xayeysiisa xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound. waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rugcadda ah kana soo shaqaynayay hawlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano. Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta. wixii faahfaahin ah oo intaa dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. soo dhawaada mar kale daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta maxamed aan ku bilowna qorshaha Israa'iil ay ku barakicinayso dadka Falastiiniyiinta ah sidee looga arkaa gudaha Israa'iil dadka Israa'iiliyiinta inta badan ayaa aad uga xun qorshaha lagu barakicinayo dadka Falastiiniyiinta ah oo la geenayo deegaan ka mid ah Rafah. nin la fagura arrimaha siyaasadda Israa'iil oo yiraahdo Akiva Eldor ayaa sheegaya shacabka intiisa badan inay dhab ahaantii ka xun yihiin qorshaha lagu barakicinayo dhammaan shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool marka Gaza oo la geenayo goob ka mid ah Rafah. waxaana taa lagu sheegay inay tahay mid qaanuunka khilaafsan akhlaaqiyadka bini aadamkana ka baxsan. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqay waxa uu ku sheegay magaalo bini aadamnimada loogu talagalay in uu abuurayo oo la dejinayo in ka badan 2,100,000 oo Falastiiniina. Katz oo asaga laftirkiisa ilma ay dhaleen dad ka badbaaday xasuuqii ay Jarmalku dagaalkii labaad ee adduunka dadka Yuhuudda u geysteen ayaa hadda waxa uu ku baaqayaa inuu dhisayo xaafad bini aadamnimo taasoo aan macnaheedu ahayn si kastoo loo dhigaba magaalo bini aadamnimo. Eldor ayaa sheegaya cid walba oo ka qayb qaadata mashruucaasi foosho xun inuu qayb ka noqonayo dembiyo dagaal. sawirro satellite-ka laga arkay ayaa waxa ay muujinayaan in Israa'iil ay burburinayso dhul ballaaran. dhexdhexaadiyaasha wadaxaajoodka magaalada Dooxa ee caasimadda oo ah dalka Qatar ku dhexdhexaadinaya saraakiisha Israa'iil iyo kuwa Xamaas ayaa ku waramaya in wadahadallada ay qodobo badan aawadood istaageen oo ay ka mid yihiin in Israa'iil ay diidan tahay inay ciidankeeda kala baxdo marinka la yiraahdo Marooga. sidoo kale marinkaas ayaa lagu sheegay inuu kala qaybinayo marinka Gaza iyo magaalada Khan Yunis. Eldor ayaa sheegay Israa'iil inay ku tala jirto inay amar ku siiso Falastiiniyiinta inay u guuraan dhinaca koonfurta oo ay ka gudbaan khad ay calaamadaysay taasoo lagu sheegay in ciddii ku harta marinka Gaza loo tixgelin inay argixisay yihiin kulligoodna la laynayo. fariintaasi ayaa waxay hoosta ka xariiqaysaa in qorshahani uu yahay mid aan labada shacab Israa'iil iyo Falastiiniyiintu aynan ku noolaan karin inta u dhaxaysa webiga iyo badda. cidda istaasha inay xukuumad yeelatana waxaa lagu sheegay inay tahay Yuhuudda sida uu la faguraha hadalku u dhigayo. arrintaasina wax la qaadan kara maaha. waayahay haddaan eegno dhinaca dagaalka waxaan aragnaa warar kala duwan oo la xiriiro dagaalo culus oo ka socda Gaza iyo in iska caabintu ay xoojiyeen weerarada. maxaa lagu sifeyn karaa arrimahan ay kula tahay? Israa'iil safka hore ee dagaalka waxyaabaha ka socda ma ogola inay warbaahinta kala hadasho. waxay ku tilmaantaa in xaalad culus ay socoto, dagaalka inuu saacado badan qaatay oo la isfara saarayo. laakiin dadka la fagurayaasha iyo dadka arrimaha militariga la socda iyo wargeysyada ayaa waxay leeyihiin wariyaal u qaabilsan arrimaha dagaalka oo war u soo disanaya. waxaana muuqata Israa'iil inay dhib kala kulmayso sidii ay ku jabin lahayd ciidanka kala duwan ee dagaalamaya ee Falastiiniyiinta oo Xamaas ugu weyn tahay. waxaana socota in agabka ay gaashanayaan in war badan uu ka soo baxay. Xamaas oo go'doon ku jirtay muddo 17 sanadood ka badan sidee u maareynaysaa inay dagaalkan sii wado
israa'iiliyiinta khabiiradooda ayaa waxay sheegayaan hubkii qarxi waayey oo israa'iil ay ku duqeysay marinka gaza ayaa israa'iil ayaa xamaas waxay ku samaysay waxa af ingiriiska loo yaqaano reverse engineering oo ah in ay ka faa'iidaysato ay dib inta u farsamayso hubkaasi ay israa'iil ciidankeeda ku burburiso waxaana muuqata goob kastoo la isku fara saaro in hore ayaan daawadayaasha HBN ugu sheegnay in ciidamada iyo dagaalyahanada falastiiniyiinta ay u socdaan 3-3 iyo 2-2 isla markii ay weerar geystaana la waayo meel kale ay ka soo baxayaan weerar ay qaadayaan waxa ay dabagal joogta ku hayaan meel kasta oo ciidamada Israa'iil ay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan ayay daba socdaan ciidanka Israa'iilna waxay afkooda ka qirteen waliba mas'uuliyiinta sarsare oogada meeshay rabaan inay si dhaqso ah ku gaari karaan laakiin dhulka inayna haysan karin meel walbana in weerar ku qabsanayo ciidan nooga dhimanayo waxaana lagu tilmaamay dhimashada ciidanka Israa'iil soo gaaraysa inay tahay mid macno darro ah oo hadafkii la rabay ee ahaa in Xamaas la burburiyo inaan la burburin karaynin Xamaasna ay si qumaati oo xoog la u haysato marinka Gaza oo dhan goob walba iyo boqol walbana ay ka dagaalamayso ciidanka Israa'iilna ay hadda soo karayso kartidooda oo liidata agabka ay wataan oo aad u nugul ayagoo ka cabanaya daal qalab yaraan Israa'iil waxyaabaha wax ku burburinayso waxa kamid ah diyaaradihiina hadda waxaad moodaa waxay burburiyaan lama arko meel ay hore u burburisay ay ku noqonaysaa gantaalada ay daadiyaana ilaahay amarkii sida ay sheegayaan Israa'iiliyiintu kuwa badan aan qarxin ayay ka faa'iideysaa hadda ka horna daawadayaasha HBN waxaan u sheegnay in 14% hubkii Israa'iil meesha la dhacday inuu qarxi waayey oo ay Xamaas ka faa'iideysanayso waxa kaloo si weyn looga hadlay dhulka hoostiisa in Israa'iil ay waxba qaban laadahay oo ay ku tilmaameen ay tahay magaalo dhulka hoostiisa ku taala oo aan la maareyn karinin in irideeda la yaqaano ama la galo si kastoo la yeelo iyo wax kastoo la sameeyana Israa'iil inay ku guul dareysatay in ay jabiso ururka Xamaasna hadda waxaa muuqata inay gacanta sare leeyihiin sida ay Israa'iiliyiinta ka marqaati kacayaan warkan ay baahisay wakaaladda wararka AP ah in khasaare uu ka dhashay weerarkii Iiraan ay ku qaaday saldhigga Al-Udeyd ee Mareykanku ku leeyahay dalka Qatar maxay ugu macno tahay xiisadda dhinacyadaasi u dhaxaysa Mareykanka sida Israa'iil oo kale wixii khasaare oo gaar uu qariyaa laakiin warbaahinta reer galbeedka sawirro satellite-ka ay arkeen ayay ka marqaati kacayaan iyo macluumaad ay soo ururiyeen goobaha ay Iiraan duqeysay ee saldhiggaasi militariga Mareykanku ku lahaa wadanka Qatar in la duqeeyo goob xasaasi ah isgaarsiinta ah oo waxyeello weyn la gaarsiiyay sida laga arki karo satellite-ka sawirada laga qaaday waxaa kaloo muuqata in Iiraan ayna wax faahfaahin ka bixin duqeynta ay geysatay Mareykankana wax faahfaahin kama bixin laakiin xaqiiqada soo baxaysa ayaa waxay tahay in wariyaashu ay warar ka raadsanayaan dhinacyo kale sawiradiina way hayaan macluumaadka la helayna waxay tahay in la duqeeyey xarun weyn oo xasaasi ahayd oo isgaarsiinta qaabilsanayd Mareykanku ku lahaa saldhiggii ku lahaa Qatar waayahay ugu dambeyntii qorshaha hubdhigista ay sameeyeen kooxda PKK oo Turkiga dagaal kula jirtay muddo 40 sano ka badan maxay uga dhigan tahay Turkiga iyo xukunka Erdogan sida madaxweynaha Turkiga uu hadalka u dhigayo qoladan muddo dheer oo 40 sanadood ku dhow ayay Turkiga dagaal kula jireen waxay rabeen gooni ugoosi hadda waxaad moodaa inay arrintaasi dhamaatay hadda waxay bilaabeen racdadii ugu horeysay ayaa hubkooda gubay waxaana baarlamaanku uu soo saari doonaa qaraar qaabkii dib loogu dari lahaa dadkaasi soo dhiibay nidaamka dowladnimada ee wadanka Turkiga madaxweynaha Turkiga sidoo hadalka u dhigayana qaran midaysan oo ku tiigsan doona horumar weyn iyo qaran isku tiirsan ayay Turkiga ku tilaabsan doonaan waa sidoo hadalka u dhigay tan kale oo ayadana aan meesha ka maqnayn waxa weeye jabhadan waxaa barataaraya dalalka dibadda ah oo kharash iyo maal ku bixinayay hadda waxaad moodaa in ay xalisay Turkiga jabhadii muddada dheer jirtay ee kasoo horjeeday PKK
waayahay aad baa u mahadsantahay maxamed daawadayaal adinkana aad baa u mahadsantihiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wararka caawa waxaa inaga xasuusinaha haddii aad ku cusub tahay HBN online TV ama hore aadan ugu xirnayn kusoo biiro barahina kala duwan ee internetkaan ku leenahay sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka, TikTok iyo Telegram-ka. sidoo kale macluumaad dheeraada waxaa ka heli kartaa barta internetkaan ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. intaa ku kulmi doona barnaamijka midka ku xiga insha Allahu. nabadgelyo. ku soo dhowow qaari online qurba joogta dadkaygu barashadii quraanka iyo qalinkii aqoonto online lagu qorsheeyo qadka haatan laga helo waa qaari online qabso oo hadalkaygu waa qaari noqo oo quraanka ku baro online waa ubadko qurba jooga qadka iyo internetka casharada ka qaateen u kaalaya qaari online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka quraanka kariimka higaada iyo asaasiyaadka diinta islaamka iyadoo ardaygu uu helayo hal week oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin macallimiintu waa khuburo macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo qaari online haddaba si aad uga faa'iidaysato casharada qaari online la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda